gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi ayaa galabta goor gaaban madaarka magaalada Berbera ku soo dhaweeyay koox fanaaniina oo ka soo kici timay dalkaasi Ingiriiska isla markaasina dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u yimid si ay dadka reer Soomaaliland uga qayb qaataan munaasabadda qaaliga 18 May ee maalinta qarannimada iyo madaxbannaanida dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gudoomiyaha gobolka ayaa la hadlayay kooxdaasi fanaaniinta ayaa sheegay inay yimaadeen gurigooda hooyo isla markaasina sheegay inay ku soo dhawaadaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolka Saaxil isla markaasina sheegay si ay shacab iyo dawladda ugu faraxsan yihiin ka qaybgalka kooxda fanaaniinta ay ugu yimaadeen si ay uga qayb qaataan munaasabadda qaaliga 18 May ay ka mid ahaayeen kooxda fanaaniinta oo iyaguna dareenkooda ka hadlaya ayaa sheegay in munaasabadda 18 May ay doonayaan inay kala qayb qaataan dadka ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo sheegay in mari doonaan 6 gobol dalka ugu waaweyn isla markaasina ay sameeyeen heeso cusub loogu talagalay munaasabadda 18 May. fanaaniintaasi caanka ah ee haatan timi waxaa ka mid ahaa fanaanada caanka ah ee Nimco Yaasiin Caraale, Nuur Daalacay, Cariseeyo iyo xubno kale iyo sidoo kale socodkooda ku weerinayay safiirkii hore ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiyi jiray dalka Ireland. Cabdi Salaan Xariir, TV-ga qaranka Berbera.